kulliyadda sharciga iyo shareecada ee jaamacadda Camuud waxa ay markii ugu horeysay xarunta magaalada Hargeysa ee waxbarashada heerka labaad ee masterta ay si rasmi ah uga daafurtay takhasusaadyo dhinaca sharciga iyo shareecada ah kuwaas oo noqonaya kuwii ugu horeeyay ee dhameystiran ee noocooda ah ee guud ahaan lagu bixiyo dalka oo dhan waxaana munaasabadan daafurka goobjoogka ah macallimiinta mas'uuliyiinta iyo madaxda kala sareysa ee jaamacadda Camuud qaar ka mid ah culimada waaweyn ee magaalada Hargeysa arday iyo daneeyayaalkana waxaana ugu horeyntii Dr. Maxamed Cali Nageeye hormuudka kulliyadda sharciga ee shareecada ee jaamacadda Camuud uu ka sheekeeyay qaybaha kala duwan ee takhasusaadyadan ay soo kordhiyeen ay ka kooban yihiin walaalayaal inagoo maanta joogna jaamacadda Camuud farceeda Hargeysa inagoo joogna waxaan ku daahfuraynaa kulliyadda diraasaat al-ulya oo ah waliba gaar ahaan qismi الشريعة وأصول الدين تخصصات كاس waxa weeyaan ilaa saddex takhasus oo waaweyn weeyaan takhasuska koowaad waa shariica waxa ku hoos imanaya qaybaheedii la yaqaanay ee kamid ahayd siyaasada sharciya iyo kamid ahayd maxaan ku raada fiqiga usul fiqiga oo kamid aha qadahi intuba waxa weeyaan majaalkii la arkay takhasus buu maahay umqi ah oo aan ku ababino daayirteen ay bartaan takhasuska xigay waxa weeyaan waa usul diin usul diinkuna waxa weeyaan kuwa tafsiirka quraanka kariimka xadiiska nabiga iyo culunta iyo mataqaana aqeedada iyo dacwada islaamiga waxa inta raaca dibloomoyin qofka lagu taahiilinayo qofku takhasus kasta uu leeyahay buu baran karaa cilmigan dibloom caali ah oo shariicadi ah oo nooc walba oo hay dibloom waxa weeyaan qof kasto degree qaatay uu gali karaa hadhow xataa master uu sameyn karaa inta waxa dheer qaanuun dawli qismigani waxa weeyaan sida uu kaaga qabtirayo shariicada islaamka ee qaybaheedii kala duwanaa qaanuun dawlina uu ku hayaa isagoo hadalka si wata ayaa Dr. Nageeye waxa uu isdul taagay ujeedooyinka ka dambeeya daafurka qaybtan ballaadhan ee sharciga iyo shareecada hadaafta guud ee uga goleenahay waxay tahay kuliyadan ama qismigan hadaafta guud ee uga goleenahay waxay tahay koow inaan fursad siino tacliimi ah maxaan ku leeyahay tacliim caali ah daayarta digriga qaadanaysa ee digriga sharciga qaadanaysa meel kasta joogta idna ay ka qayb qaataan dhismaha wadankooda ay ka qayb qaataan qodobka labaad معرفة ويفافيسا إن معرفة أنا لفدي أنا وحويان وجودين كأجوين جامعة عمود أي فرصة قريبا سيدا سلم إذا وحي صار سارسا علماء شرعيين أو فقهاء القانون أو كجوابا وحيوان بدن أو باهيد مجتمعين وجودين كأجو يعني كلا كم إذا واحد كم إذا قيم كائن لفديو قيم كإسلامي هذا تيار كي وصدقها أما تسامحها اعتدالكها وأكاديمي يدو إسلام كسي أكاديمية علمية لو دراسية سيدا سلم إذا تراثك إسلامي غاية دحلك إسلامي غاية حوقة بدن لأي قرآن لأي حديث لأي فقه لنا إن يدنا لدول فريسو ومركز يعني للدراسية سيل لوقا قيب قاطر رنتي يعني حضارة ومضى إلى هاي ومضى إسلام كائن كمن هاي البحلمة دي إلى هاي سان قيبتين أقوى قاعدنا سيدا سلم إذا يعني قسم كان وحو قيب كقاعدنا يا مجتمعين خصوصيات بدن بيقولوا هو نكتني لكبعيو إسفهمك نبضينتا حلنت مشكلاتك waxa soo dhanba iyo yani dhaqanka wanaagsan ee suuban in dadka lagu soo celiyo iyadoo lagu saleeynayna sharciga islaamka qismigan runtii wax badan ayuu soo kordhinayaa kawaadirteennii hore ee joogtay ee ka hawlgalaysay garsoorka ama meelaha sharciga ama cid walbaba in kawaadirtaasi mustawahooda kor loo qaado waxaan ku sahay uga dhigaynaa sharci islaami ah oo ay dhigayaan dad khubaro ah oo ahl cilmi ah waxaan abuureynaa markaa jiil wadankeena ilaaliya حقوق إلالية شرع إلالية عدالة إلالية انتبه محايا لي هذه أيني مثلا لهلين تاسي واحد نودا واحد بدن أيام واينا dhankooda ayaa iyaguna culimada ajnabiga wax ka dhigi doona qaybtan sharciga ee shareecada oo hadalka iska daba qaatay ay tilmaameen in jaamacadda Camuud ay tahay meesha kaliya ee dalka oo dhan laga heli karo culuntan diiniga ah oo dhameystiran وجامعة عمود هي بهذا تفتح قسم الدراسات العليا في برنامج قسم الشريعة وأصول الدين في التخصصات المختلفة وكثير من هذه التخصصات لأول مرة يفتح على مستوى الصومال وفي صومالند فهي فرصة أن نحث أبناءنا والراغبين في الالتحاق بالجامعة حتى يؤهلوا تأهيلا علميا أكاديميا ليسهموا في حماية دينهم وأمتهم وشباب أمتهم من هذا الضلال ومن هذا الانحراف. جامعة عمود لا يخفاكم
أنها هي الأولى في هذا البلد، ولا زالت من الجامعات الرائدة والمتميزة التي تقدم أو ترفد الوطن والمجتمع بالكوادر المتخصصة في جميع المجالات. هي مشهورة وغنية عن التعريف، وهي نار على علم، ويكفيها شهرة أن الطلاب يأتون إليها من مختلف الأقاليم ومن الدول المجاورة، وهي متميزة بكوادرها المتخصصة ومنهجها وبرنامجها الذي يجمع بين الأصالة والمعاصرة. sheekh ismaaciil cabdi hurre sheekh ismaaciil dheeg oo isaguna si gaar ah ula hadlayay bahweynta reer Hargeysa ee culuntan loo soo kordhiyay ayaa ku baaqay waa anagoo macallimiintayadii weeye. marka aad iyo aad baan guud ahaan ugu mahadnaqaynaa jaamacada Camuud kaalinta ay ka qaadata aqoonta guud gaar ahaan takhasusaadka kulliyada shareecada ay soo bandhigtay iyo fursadda magaalada Hargeysa iyo dadkeeda iyo deegaanada jaarka la soo bandhigay waa takhasusaad runtii aad iyo aad u qiimo badan weeye. bilaadmuga aqoonta isku dhaafaan aqoonta la baranayaana cilmi kasta oo naafic ah shareecada islaamku way soo dhaweynaysaa, laakiin waxa kow ka ah in ka umma islaamiya aynu baranno diinteena islaamka oo takhasusaadka maanta halka la soo dhigay usuuludiin waa seeskay diinta islaamku ku fadhiday, hadday tahay barashada quraanka iyo culuumtiisa, hadday tahay barashada xadiiska iyo usuushiisa, haddii ay tahay caqiidada amba iimaanka iyo dacwadu, waxay la tahay waa bayskii ay ku dhisnay runtii diinta islaamku. marka waxaan leeyahay takhasusaadkaas la soo bandhigay waa takhasusaad runtii aad iyo aad u qiimo badan, raaqiya, aad arkayso in la soo xulay oo mustawaha aqooneed ee ay hiigsanaysa jaamacadda iyo takhasusaadka haadifka ah ee la doonayo bulshadeenna ka umma ahaan iyo ka afraad ahaanba runtii inay dhisto oo dee fiqiga iyo usuushiisu qofku hadduu uu doonayo fahamka diinta islaamka haddaanu fiqiga iyo usuushiisa aqoon, gaar ahaan usuusha fiqiga haddaanu aqoon u lahayn, wuxuu noqonayaa qof gabadhacleeya oo fahamkiisu runtii uu yahay faham aad iyo aad runtii qaasir u ah. marka waxaan ugu doonayaa in jaamacadda aanu ku hambaliyayno, jaamacadda aanu ku bogaadino, isla markaana dadka reer Hargeysa dhalinyaro kaliya oran maayo, dadka Hargeysa degan oo jaamacaddu markii u horeysay takhasusaad ay meesha ka bixinaysay magaalada Hargeysa, annagu kuwaan dhallayba masterkeeda ka qalin jabiyay halkan. marka kuwa kalena waa runtii waa ugu baaqaynaa. marka takhasusaadkaasi waxaan leeyahay waa fursad naadira, xaqiiqatan fursad naadira weeye fursadaha qaarkood. maxaa yeelay takhasusaadka meesha runtii iga muuqda waa qaar raaqiya, qaar aad iyo aad u sarreeyo weeye. waxaan is leeyahay dadkii soo xulay hadaf iyo ujeeday ka lahaayeen, wajazaahumullahu khayran bihadafihim alnabil insha Allah tabaaraka wa ta'ala. aad iyo aad baan runtii ugu faraxsanahay. waxaanu runtii dhinac kale mahadnaqaynaa haadii adakaatira shurafaa muxuu ahaa inaga wadankeenii inoola jooga dhalinyaradeenna runtii inala barbaarinaya. waxaan runtii aan ku soo gebagabeynaya kelmaddu dad badan baa igala horreeyay igala dambeeya. waxaan leeyahay jaamacadda Camuud waa hambaliyaynaynaa. waxaan arkaynaa inay ku soo kordhisay branchkeedii magaalada Hargeysa qiimo aad iyo aad u weyn oo tii caruur fara badan oo inaga aynu dhalay ay dibadaha takhasusaadka ay u doonayaan, hadday tahay Suudaan, hadday tahay Masar, hadday tahay Saudi Arabia, hadday tahay Malaysia, meelo kale tiiba adigoo aqalkaaga jooga ayaa runtii ayaad gacantaada runtii ayaad biyo kaga dhargaysaa. marka cid kasta oo takhasusaadkaasi ay khuseeyaan ama ardayda farashka ah ee jaamacadaha ka soo baxaysa ha ahaato ama dadka shaqaalaha ah ee gaar ahaan takhasusaadkaas xiriirka iyo calaaqada leh, waxaan u arkayaa in cilmigooda iyo aqoontooda ay kobciyaan inay tahay wax aad iyo aad u qiimo badan. aqoon baa la isku dhaafay
waxaan leeyahay waa fursade dhalinyarada iyo dadka guud ahaan waa furan tahay fursadaasi laga bilaabo maanta tasjiilka sidii laynoo sheegay waa furan yahay de waa fursad fiican iyo farxad qiimo badan ayaan lagaaga horeyn aad iyo aad baa ugu mahadsantihiin Dr. Cabdifataax Xaaji Daawud Warsame hormuudka qaybta mastarta ee jaamacadda Camuud oo isaguna faahfaahin dheeraad ah ka bixiyay culuntan ay soo kordhiyeen ayaa waxa uu yidhi waxaan ku daraynaa anaguna intaan ugu faraxsanahay in qaybtan boorama iyadoo ka jirtay Hargeysana la keeno waxa kale oo ay qaybtani ay lafteeda aan ku sii kordhinay online-kiina waa laga dhigan doonaa marka qolooyinka boorama jooga boorama ka dhigan doonaan takhasusadan oo dhameystiran inta Hargeysa joogtaana takhasuskan oo dhameystiran Hargeysa ka bixi doonta insha Allah dadka marka aan reer Soomaaliland ama Soomaali oo dhan ee aan magaalo joogina online-ka insha Allah ka dhigan doonaa marka jaamacad ahaan haday tahay gudoomiyaha jaamacadda iyo ku xigeenadiisa ilaa qoladeedan qaybta masterto dhammaan waxa aan naga go'an in qaybta shareecadu ay noqoto qayb jaamacadda hogaamisa Professor Mukhtaar Cabdi Cali oo isaguna madashaasi ka hadlay ayaa isaguna mar kale fursadan soo dhaweynta bulshada u tilmaamay maanta hadaba fursadii waxay timid magaalada Hargeysa awalba jaamacadda Camuud magaalada Hargeysa barnaamijyo master's degree iyo PhD boy ka waday laakiinse waa markii ugu horeysay barnaamijyo la xiriira kulliyada shariica iyo usuuludiin aan ka bilaabana magaalada Hargeysa marka walaalaha Hargeysa jooga iyo cidii ka agdhow soo gaari karasa waxaan ugu baaqanaa inay fursadda ka faa'iideystaan runtii waa fursad dahabiya adoo magaaladaadii jooga oo qoyskaagii iyo dadkaagii dhex jooga oo shaqaysanaya in fursaddii waxbarashada ay halkan kuugu timaado oo waxbarashadaadii iyo noloshaadii iyo shaqadaadii aad isku wadato ugu dambeyn ayaa gudoomiye ku xigeenka arrimaha waxbarashada ee jaamacadda Camuud Professor Xamuud Ibraahim Barkhadle oo isaguna halkaasi ka hadlay uu fursadan ku tilmaamay mid xidhiidh la leh xadaaradihii islaamka ee soo jireenka ahaa waxaana uu yidhi jaamacadda Camuud maantana waxay wadaa barnaamijkii ugu miisaanka cuslaa barnaamijkii ugu mudnaa maxaa yeelay waxa uu ku saabsan yahay barnaamijkan idee shariica islaamiya iyo daraasaad islaamiya islaamnimaduna waa nolosheenii waa dhaqankeenii waa jiritaankeenii marka intaasun baa maartay si cilmiyeysan oo nidaamsan loo gudbin doonaa islaamnimaduna dasa uu Dr. Cabdifataax sheegay diinun ma ahayne ilbaxnimo ay ahayd صحيح marka jaamacadda Camuud Hargeysa waxay maanta u soo gudbisay wixii nolosheenu ay ku xilnayd oo barnaamijka la idin wado marka waxaan rajaynaynaa inaad idinkuna si fiican u soo dhaweyn doontaan u hirgelin doontaan ilaahay idinkii wax wanaagsan marka la keeno wax wanaagsan waa la wada qaataa waa la soo dhaweeyaa saas ayaan niga rajaynaynaa